waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay waanada macalinka, waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay waanada macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho, waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta, wadankiina wax u barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. إن شاء الله تعالى لما أنبأ أرضيدا دفسية عقال برايمري سكولز قارهان أرضيدا فصلة تضباط، وحين إن شاء الله لكم كبلا بدونا دروس دي أما عشرة دي إنوسي سعودي قارهان مادة اللغة العربية. إن شاء الله نقوى مع المصطفى عمر معلن يا إذن سو jeedin doona casharkani. waxaan bilaabi doonaa casharkeena ku xigay casharadii hore idinku soo socday. darsiga koowaad waxaa la yiraahdaa qiimatul waqti, qiimaha uu leeyahay waqtigu. kullay waqtigu sidaynu ognahay qiimo aad u weyn buu leeyahay qof kasta, ayna waajib tahay inuu qofku garto qiimaha uu waqtigu leeyahay. gudaha casharka ayaynu ku faahfaahin doonaa insha Allah. haddaynu iska bilowno casharka, min fadlillah, fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladay cala naasi dadka, an jacala lahum, inuu ilaahay uga yeelay annahaara dhalaartii waqtu camali daa'im, waqti ay joogteeyaan camalka. oo dhalaartii ilaahay wuxuu waqtiga qiimihiisa inoo siiyey in aynu shaqaysanno, wa mustamiri, in la daa'imo, litacallum, in wax la barto, oo watakasub, la shaqaysto. ilaahay dhalaartii wuxuu naga yeelay waqti wax la barto oo la shaqaysto. fadli aad u weyn baa ku jira. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qiimo weyn buu siiyey, oo waxyaaluhu ilaahay ku fadilay ee uu ku gaar yeelay ayaa uu ka mid yahay waqtigu. qofkana ay waajib ku tahay in uu garto oo uu qiimaha waqtiga uu ilaaliyo. wajacala lahum alleyla, ilaahay wuxuu ka yeelay habeenkii waqtu raaxati, waqti ay u raaxeeyaan, lilabdaani jirhkii. ilaahay habeenkii waxa uu ka yeelay waqtu raaxa, waqti la nasiyo, lilabdaan jirhkii. maxaa laga nasanayaa habeenkii oo jirka loo nasinayaa? min tacabi nahaar, daalkii dhalaarta kusoo gaarayay, oo ama cilmi barashadii kaasoo gaarayay, ama shaqo daraaddeed kaasoo gaarayay. daalkaasi baa loogu talagalay in habeenkii laga nasto. wayajibu, waxaa ku waajiba cala alinsaan, dadka, an yunadima, inay ilaaliyaan awqaatihi fi lleyli waannahaar, waqtiyada habeenkii iyo dhalaartii. qofka waxaa ku waajiba inuu ilaaliyo oo uu nidaamiyo oo uu habeeyo waqtiyada habeenkii iyo dhalaartii, fayastafiida, uu ka faa'iidaysto min saacaati firaaqihi, saacadaha uu firaaqada iyo jaaniska hayo, oo uu uga faa'iideeyo fiimaa calaa nafsihi, wax naftiisa wax u taraya oo anfacaya, wa ummatihi, ummadiisa, wa wadanihi, iyo wadankiisaba inuu uga faa'iideeyo, isagoo uga faa'iideynayo binafci alcaam, waxtar guud, waalfaa'idati alcadiima, iyo faa'iido weyn. intaa hore o dhan waxaa lagaga soo sheekeeyey waqtiga iyo faa'iidooyinkuu leeyahay. ilaahay habeenkii iyo dhalaartii inuu geliyey, oo uu xikmad iyo qiimo weyn ilaahay dhex dhigay, in qofku waqtigiisa uu ka faa'iidaysto, gaar ahaan saacadaha firaaqada iyo jaaniska la hayo, oo uu naftiisa wax anfacaya, ummadiisa anfacaya, wadankiisa anfacaya. faa'iido weyni waxay ku dheehan tahay inuu ugu faa'iideeyo. kasiirun min shabaabina, in fara badan oo dhalinyarta ka midi, laa yasrifuuna awqaata firaaqihim, uma leexiyaan waqtiyaday firaaqada hayaan, fii umuuri naafica, arrimo waxtar leh. waqtiyada ay firaaqada hayaan dad fara badan uma leexiyaan arrimo waxtar leh.
walaa yaxsibuuna ay xisaab mana xisaabiyaan waqtiga xisaabin dhammaanteed lihada alwaqti daayic waqtiga ay dayacayaanee lumaya ma xisaabiyaan walaa yaqiruuna ma qiraan qiimata alwaqti qiimaha waqtiguu leeyahay waqtiyadaas socda ee ay firaaqada hayaan uma qiraan qiimaha waqtiga alladii yasrifuunahu ay u leexinayaan fii umuurin taafiha oo arrimo yaryar markaasi oo laa faa'idata fiiha aanay faa'iida ku jirin waqtiyadaa waxay ku lumiyaan arrimo markaa taafiha yaryar weeyi oon faa'iido lahayn waqad takuunu haadihi lumuur arrimaha yaryari ay waqtiga ku luminayaan wuxuu noqonayaan sababan waxay sabab u noqonaysaa likasiiri in fara badan min almataacib inuu daal khasaari soo gaadho qofkii walmashaakil iyo mushkilado iyo dhibaatooyin lahum iyaga soo gaadha waliuslihim qoyskooga iyo wa mujtamicihim ummadoodaba waqtiga haddaanay ka faa'iidaysanayn xisaabin waxa soo gaadhaya markaa daal fara badan iyo mushkilad iyo dhibaato qoyskii markaa iyo mujtamic iyo ummadiiba fayajibu haaulaa'i shabaab waxaa ku waajiba dhalinyarta an yastafiiduu min waqtihim alqaali inay ka faa'iidaystaan waqtigooga qaaliga ah falwaqtu waqtiga aladii yafuutuhum ka tegay laa yacuudu ilayhim uma soo noqonayo saaniya mar labaad waqtigu hadduu tago mar labaad kuuma soo noqonayo oo waad ka calaacalayo markaa waqtigu intaa uu joogo ayaad faa'iidadiisa haysaa haddaba kayfa yastaqilu mar-u sideebuu uga faa'iidaysanayaa qofku waqta firaaqihi waqtigu firaaqada iyo jaaniska leeyahay calaa wajhi saxiix wajiga ugu saxsan yastaqilu wuxuu uga faa'iidaysanayaa mar-u qofku waqta firaaqihi waqtigu firaaqada iyo jaaniska hayo an yunadima inuu nidaamiyo waqtigiisa biwajhi caam weji guud inuu u nidaamiyo oo waqtigiisa kaga faa'iidaysta markaasi waqti nidaamsan wayukhasisa waa inuu gaar yeelo jus-an minhu qeyb ka mida waqtigiisa licamalihi camal iyo shaqo iyo cilmi barasho wax gaara waa inuu u yeelaa wa jus-an qeyb ka midana liraaxati nafsi naftiisa waa inuu nasiyaa oo uu u raaxeeyaa bitasliya si hami la-aana oo warwar la-aana oo albarii ah bilaa ceeb ah si markaa uu beri ka yahay inuu hami iyo warwar iyo daal naftiisii waqti ka mida waa inuu markaa nasiyaa bacda canaa'i alcamal camalka dabadii waa inuu qofku nasiyaa naftii maxaa nafta laga nasinayaa almutawaasil shaaq nafta markaa ay soo gaadhay ee la xidhiidhay dhibaatadu markaa liyujadida waa inuu cusboonaysiiyaa nashaadii firfircoonidiisa wayaziida waa inuu qofku kordhiyaa min xuyuuyatihi firfircooni qofku waa inuu kordhiyaa firfircoonidiisa waqtiga markaa darsigan aynu ku dhiganaynaa waa qiimaha uu leeyahay ardayow su-aalahan ad ka jawaabi doontaa ajib can ilas'ila bacda qiraa'atika sheekadan dabadeed ka jawaab su-aalahan su-aasha koowaad maada yacmalu linsaanu fi nahaar dadku muxuu dharaartii qabtaa wamaada yacmalu fi lleyl habeenkii muxuu qabtaa kayfa yastaqilu sidee buu uga faa'iidaystaa almar-u qofku awqaata firaaqihi waqtiyaduu jaaniska hayo maada yataratabu maxaa ka dhalanaya min diyaaci lwaqti haddii waqtiga la dayaco hal min almumkin suurtagal miyay tahay an yacuuda inuu soo noqdo alwaqtu faa'it waqtigii tegay zaaniya mar labaad bimaa tasarufi maxaa loo leexinayaa waqta firaaqika waqtigaaga jaaniska hayso maxaa loo leexinayaa oo lagaga faa'iidaysanaya darsiga inoogu xiga insha allah waxaynu kaga hadli doonaa taxiyatu lmucallim mucallimka iyo mudnaanta uu leeyahay alcilmu usami lmudalab wa acdamuhaa cilmigu waa ka u sareeya ee wax lagu dalbado una weyn bilcilmi tacluu darajaat cilmigu wuxuu leeyahay darajooyin iyo heerar sarsareeya wayatanaafasu nnaasu dadku waxay u borotamaan fii dalabihi cilmiga iyo dalbashadiisa iyo doonidiisa iyo inay cilmi iyo aqoon raadiyaan ay dadku u borotamaan waalmucallimu yatakharaju calaa mucallimku wuxuu ku soo saaraa yadayhi gacantiisa alculamaa culimo oo culimadan dee waxaa soo saaray mucallimiin waalmufakiruun dad fikir saxale buu mucallimku soo saaraa waaladibaa dhakhaatiir buu soo saaraa waalmuhandisuun injineeruu soo saaraa yutcib mucallimku waxa uu markaa daariyaa oo yutcibu wuxuu tacab geliyaa mucallimku
في تعليم إنه وحبره الأجيال جيل كالدوان يدد فربضان يبلش فربضان إنه معلمك وحبره وتربيته أو تربيته ويصهم في بناء العقول وتوجيهها معلمك وحورس عقلك ضدك يبلشده وتوجيهها وجهه يا معلمك ومعلمك وتلمان يحقق والمعلمون معلمين يؤدون وحي قتال رسالة الأنبياء رسالة نبية للصادري وحي أمده كساري جهلك ووحي تلمامين طريقة صحبين راعات سيدو كلام معلمك وحي أمده مركا تصيا طريقة صحبة سوى جهلك كردك علمية وجدير بالشباب waxay mudan yihiin dhalinyartu an yuqadiru mucalimiihim inay qadariyaan macalimiinta ويستفيدوا من علمهم ويكفى إذا علمك يقونت معلمينتا النص وقبي قبي يقول حكاها دونا معلمك يتلمامها وليه هيبو ينصين دونا قم للمعلم قم أكع للمعلم معلم كاغا وفيه سي تبجيلا وسيادي مركا احترام يقدني وفيه يعني وحوي وزيادي تبجيلا احترام يقدرين معلم كذا كذا وحود وهذا المعلم ومعلمكم أن يكون رسولا إنه رسول نقضم معلمكم ودوالي علمت ما وقتها أشرف عدك شرف بدن أو أجل أما كسريسة من الذي واكي يبني كرسية وينشئ صوصارية أنفسا وعقولا نفويا عقلية وأيوك كشرف بدن كسرية كرسية صوصارية نفويا عقلي سبحانك إله هذا حمانك النسهان اللهم خير المعلم الله يو وناك بأسقنا ذي معلمك أيوك بيقول لي هاي علمت وحاد برتي تتك بالقلم قلم يسلي وحقران القرون الأولى قرنية هوري أخرجت وحاد صوصارتي هذا العقل عقليا وحاد كسارتي من ظلماته مذويو وهديته وحاد تصيصي نور المبين افتين عد والزبيلة وضو النقضة طريقة سيئة تسدي الدبولية الجميلة قروحة إلى البلاد وضنك وتستحيي يحشور من تكافئ ويك أبال كدونية الصناء الجميل أبال علم قروح بدن معناك مركا معها مid ku doonaya qurux iyo waxa weeyaan wanaag iyo sareyn cilmigan iyo aqoontan uu bixinayo laakiin wuxuu soo saarayaa jiil wadankan markaasi ku daboolaya sida qurux oo kale wayada usiba alqawm haday kaga dhacaan qoom fi akhlaaqi akhlaaqdooda hadii qoom akhlaaqdoodu xumaato fa aqim alayhim ma'tama wuxuu istaag dushooda ma'taman mid ay u noqdaan mid la aamino oo mu'tami'a oo wax tilmaama وعويلة يمد وحكبة أو حق أخلاق قومك ككبة وإذا النساء الضمر كون شأنه هذي دونان إني كتر هذي نقضان في أمية وأميين أو جهل وصاحبة هذي الضمر كون نقضان ردع وحنوغا الرجال رد جهالة جاهل نمي كنوغان وخمورا يعاجس نمو هذه هو يدو أمي نقطة وجهلي hooyadii waxa weeyaan ay noqoto waxaan nuugay markaanin wuxuuna ka nuugayaa qofkaasi jahli iyo caajis sida darteed baa la dagaalamayaa inay hooyadu aanay noqon hooyo jahliya laakiin ay noqoto hooyo wax barata oo aqoon leh si cid nuugaysa ee shaqaysa ay u noqoto cid ka fog jahli iyo caajisnimo qul lishabab waxaad ku tiraa dhalinyarta al-yawma maanta buurika waxa la barakeeyay qarzakum wax soo saarkiina iyo dhalinyarnimadiina dannat waxa dhawaatay alquduf in la jaro dhalinyarnimadiina baa dhawaatay in la jaro wadallalat waxa fududaatay tadliilan fudayd gabaygan markaa wuxuu ka hadlayaa macalimka iyo maraaxilkiisa macalinka iyo mudnaantiisa macalimka iyo miruhu soo saarayo sida uu yahay markaa waxa weeyaan qof kasta waa dalib cilmi waa inuu ku dadaalaa aqoonta iyo cilmiga gabayga dabadi ajib باختصار عما يأتي سكومن وجواب سؤالان ما الذي يجب علينا نحو معلمينا maxay naga waajiba macallimiinteena
ما الذي يرفع منازل الناس وأقدارهم ويعد كر أقاد كرياجة منازل الناس dadku halka ay joogaan iyo aqdaarihim qadarkooga cida kor u qaada manzilka iyo dadku halkay joogaan iyo halkay mudan yihiin waayo bima shabaha shaa'ir al-muallim kabayagani muxuu ku matalay oo ku shabahay muallimka ala man natawakkal ku tiirsanayna wa na'tamidu fi hayatina yan tala saaranayna oo wa na'tamidu fi hayatina nolosheena inuu tiirinayna أكمل الفراق بما يناسب كبوحي كلمة هابون يتنافس الناس في طلب تتكوحي وكبر طمان إن يدلبان رسالة المعلم هي رسالة المعلم كسدا وحي لم يتهي رسالة المعلم أخرج عقول البشر معلم كوحو كسار عقل يددك من إلى النور سوى يفتين ساريا يجب وحواجب المعلم أدار ديو إن شاء الله اسكو ديدونا بوحين دونا إعراب الجمل الآتية لبدا سؤالنا ولا إعراب يعني الجملة ده يقابل الضلاب المدير وحيقابل يعني أرضي معمولها لا تصاحب الأشرار الله صاحب دتك حنحن إعراب تخرى أصوريتين هذا مركاش اسكو ديئية درسيها مركا لبدا 10 يسحيقة بدنا وحان كل قيمة وقت قوليهي بدنا وحان كل معلمك يمدنان تيسا إن شاء الله أرضيي أي نكود ذان العشرة هالكاسي نوغسي سعون دونان انتاسي نوغو جوغ دون تامانتا إن شاء الله تعالى في أمان الله.